بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه ولا ليال إلهي بما هدنا سبحانه وتعالى. آيات قرآن ونكسن عليه ونكسن أبوري وحكولي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. آيات قرآن ونكسن إلهي جل وعلا وحكا هذي وحل إلى هذا وهجانك ما أنت حلقان جونو منطقتنا waxa ka socda si guud ahaaneed adduunka waxa ka socda si gaar ahaaneedna mantiqada aan deganahay waxa ka socday waa wax weyn. waxay yiraahdaan dadka daraaseeya geedi socodka taariikhda, waxay yiraahdaan dadka daraaseeya ummaduhu sida u sameysmaan ee sida u dumaan. waxay yiraahdaan dadka daraaseeya sida ay wadamadu u sameysmaan sida ay u dumaan. dadka daraaseeya waxay yiraahdaan kontonkii sanaba adduunka waxbaa dhaca, wax dhumucdiisu dhaxdhaxaad ay tahay baa dhaca. 100 sano ilaa 300 sano inta u dhaxaysana waxay yiraahdaan wax weyn baa dhaca, wax weyn oo adduunka ku weyn. juqraafiga marka laga hadlo, deegaanka ku weyn, ummadaha marka laga hadlo, wax ku weyn baa dhaca 100 sano ilaa 300 sano inta u dhaxaysa. waxaad moodaa adduunka maanta gaar ahaan mandiqadeenaasi inay ka socdaan wax weyn baa ka socda. waxaad moodaa wax weyn baa isbedelaya marka lagu noqdo oraahda ay leeyihiin dadka daraaseeya culumta aan sheegnay. walaalayaal, mandiqadeena nimankii u tashaday, dadkii u tashaday ee sidaa maanta ay taalo u dhigay, juqraafi ahaana sidaa u dhigay, basharkana sidaa u dhigay, waxaa u soo baxday sidani hadda waxay yihiin maslaxadooda inayna ka jawaabayn, dantooda gaarka inayna ka jawaabaynin ayaa u soo baxday. sidaa darteed go-aan bay ku gaadheen inay ruxaan mandiqada adduunka, inay ruxaan mandiqadana inay gilgilaan, inay ruxaan. go-aan baa u soo baxay. go-aankaana ayaga si toosa ugama imanine waxbaa sababay. waxaa sababay shucuubtii mandiqada deganayd ayaa wacyigoogiibaa waxooga kordhay, garashadoodii iyo garaadkoogii baa kordhay. 2 waxaa soo baxay adduunkii baa isku furmay, adduunkii baa isku dhex daatay, wararkii baa la kala qaatay, wararkii baa la kala helay, waa la isbartay. adduunka wixii ka dhacayeybaa ayaa la isbarto. adduunkii baa laga dhigay, adduunkii tirada badnaa baa laga dhigay adduun keliya. adduunkii tirada badnaa baa laga dhigay adduun keliya. marka réseaux sociaux التواصل الاجتماعي waxaa loo bixiyay ayaa la isku bartay. dad adduunka la liidayay oo nolol aan ku noolayn, biyo fiican oo lacab aan haynin, koronto aan haynin, dhul aan haynin, nolol aan haynin, ayaa waxaa warar bay heleen saxa oo indhuhu ay gooyaan, garaadkuna uu gooyo. adduunka noloshan dhaanto oo ka fiican inay jirtabay ayay daawadeen, way arkeen, way akhriyeen. marka adduunkii baa isku biiray oo wuxuu soo baxay wixii hal adduuno wala iswada xaal og yahayo wuxuu noqday adduunkii in la iswada ogaado. waxaa ka dhashay 2 arrimood: wacyigii ummadaho waxoogaa kobcay iyo adduunkii oo hal adduun soo baxay oo warkii la kala qaato, warkii la kala helay. waxaa soo baxday diidmo oo waxoogaa shucuubtii baa wax diiday. waxaa go-aan markaa lagu gaadhay in si kale wax loo dhigo. marka 100kii sanaba ama ilaa 300 sano, 100 sano ilaa 300 sano inta u dhaxaysa wax weyn baa dhaca layidho. taana waxay ku gaadheen waxa la yiraahdaa istiqraa par l'observation, par au moyen de l'observation, au moyen de l'analyse, de l'étude, in la daraaseeyo, loo dhabagalo. 100kii sanaba wax weyn baa dhaca. waxay noqotay wax loo soo joogayo, soo jireena ayay noqotay. mandiqadeena wax weyn baa ka soo socday, ilaahay khayr ka dhigo. waxaa mandiqada ka dhacay dee wadamada mandiqada oo dhan buu saameyn buu ku yeelanayaa.
saamayn. haddii waxaa si wanaag uu ku dambeeyana dee waddan kasta wanaag baa ka soo baxaya. hadday cul iyo culays iyo dhibaata ay timaadna waddan walba culays iyo dhibaataa soo gaaraya. ilaahay baan ka magan galay subxaana wa tacaala culays iyo dhibaato. maxaa loo baahan yahay saacaddaa la joogo ee indheergaratadu ay leeyihiin wax weyn baa dhacaya. indheergaratadu ay leeyihiin wax weyn baa dhacaya. maxaa loo baahan yahay aayadda qur-aana ilaahay jala wacalaa wuxuu ka hadlay nabiyullaahi ibraahim waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun. maxamed qudub raxmatullaahi calayhi ninka un penseur de l'islam un égyptien مفكر مصري عبقري wuxuu kitaabka u bixiyay duruus quraaniya casharada ku jira kitaabka ilaahay wanaagsan. casharada wanaagsan ee kitaabka ilaahay wanaagsan ku jira ayuu kitaabka u bixiyay. kitaabka aayaadka uu casharada ka soo saarayo aayadan baa kamid ah. ilaahay nabiyullaahi ibraahim ayuu itixaamay. culays baa la saaray nabiyullaahi ibraahim. waxaa lagu itixaamay bikalimaatin. kalimaadkaas waa maxay? alawaamir wannawaahi waa la yidhaahdaa. nabiyullaahi ibraahimow waa shareecadii sharaa'ic sidaa yeel sidaana ha yeelin. waxaa qabo waxaana ha qabanin. sidaa u dhowow oo fuli sidaana ha u dhowaanin oo ha fulinin. ilaahay nabiyullaahi ibraahim wuxuu culays buu saaray. waa la jarabay waa la itixaamay. waxaa lagu itixaamay erayaa lagu itixaamay. dee waxaa ha samaynin oo nafta inaad rabta inay samayso waa imtixaan. waxaa samee oo nafta inaad rabto inaanad samaynin waa imtixaan. markaa nabiyullaahi ibraahim erayaa lagu itixaamay. waa lagu macnayaa macno fara badan baa kelimaadka culammadu ha u sheegaan. macaanida waxaa ka mid ah inankaaga ismaaciil gowraca. waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin. erayadaa culayska lagu saaray nabiyullaahi ibraahim culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waxaa ka mid ahaa wiilkaaga gowrac. nabiyullaahi ismaaciil nabiyullaahi ibraahim waa da, xaaskiisii waa da, ubad ma hayaan. ilaahay buu baryayaa inuu ubad helo. isagoo da buu ilaahay ismaaciil siiyey. deeta waxaa lagu yidhi wiilkaagaa gowraca. wuxuunbaa dareemi karaa dadka ilaa hadda ilaahay una wax ku arsaaqin. dadka ilaahay uu u maqan yahay wax fiican ilaahay ugu maqan yahay. ilaa hadda ilaahay una wax ku arsaaqin dadka un baa fahmi karaa. adigoo ilma sugaya abidkaaba da goor dambe oo daahsan dib u dhacsan wax lagu siiyo. ilmaha lagu siiyey sida aad ku tahay qalbigaagu siduu ugu calaqan yahay siduu ugu dhegan yahay cidda ilaahay unan hadda wax siinin ciddaa unbaa garanaysa. isagoo da ayuu nabiyullaahi ismaaciil helo. markaasaa lagu yidhi gowraca. falamaa aslama watallahu liljabiin wanaadaynaahu an yaa ibraahiimu qad sadaqta aru'ya inaa kadalika najzi lmuxsiniin ina hada lahuwa albalaa'u lmubiin wafadaynaahu bidibxin cadiim. gowrac baa lagu yidhi. ilaahay wuxuu yidhi allaaba qiray oo markhaatiyo ina hada lahuwa albalaa'u lmubiin. ilmahaaga gowrac. ilaahay wuxuu yidhi waa dhib weyn. wafadaynaahu bidibxin cadiim. neef baa lagu yidhi gowrac bedelkii nabiyullaahi ismaaciil markay isdhiibeen. falamaa aslama watallahu liljabiin. labadoodiiba markay isdhiibeen nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil labaduba markay isdhiibeen oo nabiyullaahi ibraahim inankiisii ismaaciil uu ku yidhi aabba jiifso amarka maan hayaa. ismaaciil loogu jiifsaday. markay isdhiibeen ayuu ilaahay yidhi waxaa lagu samata bixiyey bedelkiisii inuu neef gowraco. marka fa atamahunna nabiyullaahi ibraahim culayskaasaa la saaray. imtixaan baa loo dhiibay. imtixaankii ereyadii lagu itixaamay uu dhammaystiray. si fiican buu uga soo baxo si kaamil uga soo baxay. imtixaankii markuu ka soo baxay nabiyullaahi ibraahim markuu noqday nin raga geesi haliyey libaax markuu noqday amarkii ilaahay uu fuliyey. imtixaanka inankaaga gowrac baa ka mid a. waa meel halisoo adag. markuu imtixaankaa dhammaystiray ayuu ilaahay ku yidhi nabiyullaahi ibraahim inii jaaciluka linnaasi imaama. waxaan dadka kaaga dhigay ibraahimow imaam hogaamiye. imaamkii salaada dadka tujinayay dee waa hogaamiye. macnaha ayaddu imaam dad salaad tujiyo way ka ballaaran tahay. imaam waa hogaamiye.
waxaan dadka kaaga dhigay hogaamiyaan kaaga dhigay, waxaan kaaga dhigay un leadership, dadka inaad u noqoto hormood nolosha dadka inaad u horkacdo, wanaaga dadka inaad u horseedo, dhibta dadka in laga badbaadiyo adiga inaad ka noqoto hogaamiye, wax kasta oo khayr oo fiican in dadka loo soo jiido hogaamiye inaad noqoto, dhib dhammaanteed dadka in laga riixana inaad hogaamiye ka noqoto ayaan kuu doortay buu ilaahay ku yidhi nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam. innii jaaciluka linnaasi imaama, maadaama aad ka soo baxday imtixaan culus oo dhib badan oo imtixaanka ay ka mid tahay wiilkii intaad sugaysay Ismaaciil gowrac oo inaad gowracday run ay ka ahayd run, falamaa aslamaa labadiiba way isdhiibeen, ils se sont soumis tous les deux à Dieu exalté soit-il, labadiiba ilaahay bay isku dhiibeen jalla wacalaa. maadaama imtixaankii nooca aad ka soo baxday, innii jaaciluka linnaasi imaama, waxaad u qalantaa inaan dadka kaaga dhigo hogaamiye. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waxaa galay kalgacaylo, waa martabad, waa darajo ilaahay baa ku doortay, wuxuu kaa dhigay un commandant hogaamiye, wuxuu kaa dhigay un guide, wuxuu kaa dhigay un leader, wuxuu kaa dhigay nabiyullaahi ibraahim oo ilaahay baa ku jecelo dadka kow baa tahay, kow labo saddex afar shan ma tihide, waxaa tahay la priorité des priorités, kow baa too ilaahay baa kow kaa dhigay. nabiyullaahi ibraahim wuxuu arkay wax fiican, markaabuu wixii fiicnaa buu dadkiisii la doono, wuxuu yidhi qaala wa min dhurriyatii, ilaahow sidoo kale waxaad ka dhigtaa aima, jamac imaam, le pluriel de imaam wa aima, ilaahow ummaday dadka aan hor joogana ayagana ayma ka dhigo, dadkayna hogaamiyaan ka dhig, gebigooga leadership ilaahow liideer ka dhig, waa martabad iyo darajo fiican. ilaahay muxuu yidhi qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin, ilaahay wuxuu yidhi ballankaygu ma gaadho kuwa xadgudbay, ballankaygu ma gaadho inaan ballan siiyo. oo ballanku waa maxay? waxaa tahay anaa ku doortay nabiyullaahi ibraahim ow leadership, liider baan kaa dhigay, waa ballan, waa darajo, anaa ku darajeeyey. ilaahay wuxuu yidhi darajadaa iskama siiyo cid kasta, iskama siiyo, gaar ahaan les injustes, dadka dulmiga falaa ilaahay ma siiyo buu yidhi subxaana wa tacaala. maxamed quduub kitaabkiisa uu bixiyay duruus qur'aaniya wuxuu leeyahay nabiyullaahi ibraahim ilaahay hogaan goormuu u doortay, waa maxay shardiga aasaasiga, la condition sine qua non pour un leader, un leadership, quelqu'un qui guide sa nation, sa communauté, sa société, son peuple, qofka dadka hogaaminayay shardiga lagama maarmaankii waa maxay? waxa weeyaan waa qof waayuhu bisleeyey, qofkay noloshu bislayso, waayuhu bislayo, timuhu ay caddaadaan, garhkii timihiiba caddaaday, garaadkiiba caddaaday, khibrad baa buuxisay, khibrad soo majeeste, manaxe, qof adkaysi badan, cadowga marka laga hadlayo adkaysi badan, soo majeesta, jariska xoora, dadkiisa marka laga hadlayo qof naxariis badan, dabacsanaan badan. waa maxay? waa qof itixaan dhammaantii fa atamahun, noloshu imtixaanaday wadato, caloosha ay ku wadato, qof ka soo baxay oo waayuhu bisleeyey, qofkaasaa noqon kara liider, ummadda qofkaasaa hogaamin kara. فأتمهن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. امتحان دمانتي قفك صباحي قفك أبو مده هجامي كرا مركا شردقة indispensable كا لما هرانكا هجامي وكصباحي ومحي نرشوا وذا امتحان نرشوا وذا عليس يدب qof noloshu ay xoor-xoorisay, noloshu ay dubatay, noloshu ay bislaysay oo khatar ayna waxba u sheegin, khatari ayna waxba u sheegaynin, kalgacaylo iyo ikhlaas iyo dabacsanaan ay buuxisay, qofkaasaa ummadiisa hogaamin karo, ummadda ka dhashay ilaahay uu ka soo saaray, qofkaasaa wadi karaa. ayaanan wuxuu leeyahay maxamed qudub ayaanan dadka wadi karayn, ayaanan dadka hogaamin karayn, dhaalim dad ma hogaamin karo. qaala laa yanaalu cahdi الظaalimiin, ahdigayga ballankayga ereygayga anuu ma siiyo, dhaalim ma siiyo. dhaalim ummadda ma hogaamin karo. maanta ayaa ummaddeena hogaamin karaa. dadkii nooca ahaa imtixaan dhammaantii ka soo baxay, waayuhu bisleeyey, wax kala garanayey, noloshu ay dubatay,
noloshu ay solatay ay sida hilibka loo solo noloshu ay solotay way tiro badan yihiin oo way nala joogaane maanta kuwa banaanka lagu soo waxba lama weydiyo ayaa dadka maanta hor joogo xukuma meel kastoo aan joogno les injustes inta ilaahay yiri dhaalim adh-dhalimun kuwaasa maanta xukuma meesha doontid joog bas baa la socdaa la sheekaysanaya intii wax garanaysay ficnad way aamusantay kii gardaraaba baska ka dhax cabaadaya taxi baa la socdaa la saaray intii wax garanaysay way aamusantay dadka wax ka dhax cabaadaya kii gardaraa diyaarad baa la saaray intii wax garanaysay waayuhu uu bisleeyay waxaysay way aamusantay intii gardarayd baa ayaa cabaadaysa masaajid baa la joogaa hadii la doono waxa imaama waxa eedaamaya kii gardaraaba imaamo eedaamaya kii imaam noqon lahaana uu fadhiyaayo aqoontii cilmigii buu hayaayo uu fadhiyaayo kii gardaraabo ku duba tukanaya haday tahay xaafad kii gardaraaba xaafada xukuma xaafadana waxa buuxa in tira badan oo dadnimo ay buuxiso waayuhu uu solay oo dadnimo ay buuxisay baa ayaa xaafada gala iskuul baa la joogaayo iskuulka waxa xukuma kii gardaraaba xukuma kii aan waxba garaneyn baa xukuma kii gartahayay wax kala garanayay tabaashirtii buu haystaayo fasalkii buu ku jiraa xafiis baa la joogaa intii wax garanaysay waxay ku xiran yihiin xafiisyo madhan bay ku xiran yihiin kii gardaraa aan wax garanayn ayaa xafiiskii haystaa walaalayaal maxamed qudub raxmatullaahi calayhi aayadda xilligaan joogna maanta 100 sano ilaa 300 sano inta u dhaxaysa wax weyn baa dhaca wax weyn mandiqadan markaad eegto wixii baa ka socda ayaa ina samata bixin karaa nabiyullaahi ibraahim talaabada uu qaaday cid qaado oo kale ayaa ina samata bixinaysaa laakiin qof xadgudub badan oo gardarro badan inama samata bixin karayo walaalahay waxaan u baahanahay dadka imtixaanka nolosha ka soo baxay ee waxgaradka kartida leh meeshay doonaan ha joogaan dadkaas loo baahan yahay xilligoodii baa la joogaa barakallahu fiikum wa jazaakum allahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullah